maanta waxaan isla arkaynaa 6 farsamo oo ku saabsan MS Word waxay ahaydaan tips and tricks. Midda koowaad sida ujeedada shaashada wide waaye waxaa u bedeli kartaa dark u bedeli kartaa madow ka dhigi kartaa. Waxaad tegeysaa file kadib waxaa ku dhufanaysaa halkan qoran tahay account then meesha ay qoran tahay colorful ayaa taabanaysaa kadib waxaa leedahay dark leedahay waa kaa madow ayuu noqonayaa shaashada geesaheedu waxay noqotay dark grey noqotay. qaybtan cad sida madow looga dhigi karaa waxaad tegeysaa design then waxaad dooranaysaa halkan qoran tahay color then black aad dooran kartaa kalarada kale aad dooran kartaa then black una door hadda waxaad doonto qoran kartaa marka waxaad doonto ayaad ku qoran kartaa then waa qoraalkaas noocaas ayuu ku noqon doonaa. qoraalkan hadda sidaa noqday hodhowdii markaa wax print garanaysid wax markaas effect ama saameyn oo kuma yeelan doono aan fiirno markaas inaan print garanayna oo kale control B baan leeyahay you see warqadda noocaas ay kugu soo bixi doontaa caddaantii marka abaaneed ay kugu soo bixi doontaa. sidiis horaan ku celinaynaa file aan leenahay kadib account aan leenahay then dark grey aan qaadi doonaa colorful aan leenahay. okay qaybtan madowga white kada aan ku celinaynaa waxaan ku dhufanaynaa design then waxaan dooranaynaa page color kadib white aan ku celinaynaa. okay farsamada labaad waxay noqonaysaa salaam qoraalkan ugu horeeya ayaan koobiyeynayaa control C aan leeyahay sidoo kale qoraalkan kale aan koobiyeynayaa control C asagana sidoo kale qoraalka saddexaad ayaan koobiyeynayaa control C. okay haddii baas garanaan dhaho control V kaliya waxaa ii soo baxayo kan kii ugu dambeeyay kuwii hore sidaan ku arki karaa oo haddii aan rabo inaan baas gareeyo mar kale maan soo koobiyeynayaa waa maya kaliya waxaad isla qabanaysaa window iyo V isla qabanaysaa window V markaa isla soo qabato saana ku soo bixi doonto sida markaa ku soo baxdo halkaan aad joogto salaamkan ayaan click siinaa waa ka ujeedaa this symbol uu soo baxay qaabkaas marka u isticmaali kartaa haddii markaa dhaw window V marka wax kale ku jira fiilalkan iconada emoji aad rabtid waa ku soo dirsan kartaa hoosii halkaan emojiska waa ka qaab halkaan aad ka isticmaali kartaa taa u baahan tahay halkaas aad ka helaysaa. okay iyo symbol calaamado kala bedelo hadaa rabtid soo meeshaan ka helaysaa. okay farsamada saddexaad qoraal aad rabtid inaad qariso oo aad delete gareynayso qaabka loo sameeyo tusaale hadda qaybtan ugu horeyso ayaan dooranayaa waxaan rabaa kaliya inaan qariyo inaan delete gareeyo mar rabo waxaan dhihi karaa control D markaan dhaho then halkaan aad arkaysid markaas hidna qoran tahay taabanaya kadib okay aan leeyahay waa ka qoraalka ugu qarsoomay. okay farsamada xigta waxay noqonaysaa qaabka screenshot loo qaado ama loo soo geliyo saada ku dhufanaysaa then waxaad tegaysaa meesha ay qortay screenshot then haddii screenshot uu jiro markaasi waa soo gashan kartaa haddii aad qaadaysna halkaan screen clip na click siinaysaa then waxaad soo qaadan kartaa waxaad doonto tusaalaan qaybtan aan rabaa inaan sato then waa kaa qaabka uu isoo kale soo ujeedid waan yareysan karaa waan weyneyn karaa qaabkaas aan u isticmaali karaa. okay farsamada xigta waxay noqonaysaa format painter tusaalaan qaybtan aan rabtaa inaad kalarka qaybtan kale kalarkan asiiso kalarka kan in halkaan si saartaa waxaad dooranaysaa qaybta hore then waxaad dooranaysaa format painter kadib sidaa ujeedaysaa bisay soo ujeedid formatka ayuu qaatay. haddii aad rabtid kuwan kale inaad siisid sidoo kale hal mar markaas dooro laba mar click si kadib intii imaw hal mar saa u jiid haddana sidoo kale mar kale ku jiid labada qaabkaas loo bedeli karaa si markaas aad oo qaado escape taabanaysaa escape markaa taabato then qalinka siiso ayuu kusoo laabanaya soo jeedid kalarka sideeda ay kusoo laabato. okay farsamada xigta waxaa waaye haddaa u baahato qoraalkan oo kale inaad save garaysato si waqti dambe oo isticmaashid waa dooranaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa insert then waxaa leedahay quick parties kadib halkaan hoos waxaa ku qoran save selection to quick path gallery oo ku dhufanaysaa then waxaad ku save garaysanaysaa tilaaxa iska save garaysanaa kadib okay leedahay. hadda tusaale aan delete gareeyo oo dhow dambe inaan isticmaalo aan u baahdo kaliya waxaa imaanayaa insert then waxaa imaanayaa quick parties then hoos aan u socdo you see waa kana kaliya leedahay kadib soo gelinaysaa. cashirkan waa intaas haddaan ugu cusubtaan ugu soo biir wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.